الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركز بلاشنا الله ترتيس إذن جعل حان إذن لا يهيسو دواذا إن شاء الله وحين كجلنا بالبركيسا وذي الحجة وبلوينكي شهر الحرام لدهاي marka waxa ay kamid tahay waa inaan ka faa'iideysanaa waxa ku dhex jira cibaadooyin fara badan soonka salaadi zakada iyo xajka marka alxamdulillah nimcadaasna ilaahay intii uu garansiiyo ayaan rajeynaa inay ka faa'iideysato insha Allah intaas kadib ilaahay waxa uu yeelay ama uu ka yeelay maalmihiisa maalmo uu si gaar ah ugu fadli yeelay maalmaha kale waayo 10 maalin ee ugu horeysa bisha Dhulxija ee aanu ku guda jirno bishaan waaye ayaa waxa ay tahay maalmaha ilaahay kuwooda ugu fadli badan uguna khayrka badan ilaahay baana ku dhaartay maalmahaas oo yiri weynaay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ku dhaartay waa bariga aroorti ama dharaarta subaxii wuxuu yiri waxaan kaloo ku dhaartay Allah waxa uu yiri habeenada 10 ah waxaan kaloo ku dhaartay ayuu yiri shafciga shafciga waxa waa maalinta 10aad oo gowraca waa maalinta gowraca wuxuu yiri waxaan kaloo ku dhaartay Allah maalinta witriga waa maalinta 9aad ee Arafo iyadoo Ilaahay quraankiisa uu ku yiri wal fajri walayaalin 10 والشفع والوتر إلهي مالمهيس وحا ugu fadli badan maalmahaas 10 ah ee ugu horeeya Dhulxij sida hadda inta maalmaha aan ku jirno maanta waxay maraysaa 4 diiwaana bisha Dhulxij loo yaqaano waana maalmaha ay ku kulmaan dhamaan cibaadada Ilaahay sida soonka salaada zakada iyo xajka waxaana loo yaqaanaa maalmaha hooyada cibaadada وانا لبلاب عبادة مالماس وحانا لبضيا تكبيرتا تسبيح ذا ايو تحميد وانا لصوما صوم كان وحال سنيي دادكان حجينين او حجيدة اهين او ان لوغا باهنين ان حجينين لوغا باهنين دهن عفوا دادكان حجينين ايا لوغا باهنيهي in ay soomaan laakiin kuwa xajinaya iyaga loogama ogolaanin ama loogama baahna waxaana musnadka imaam Ahmed ku xusan in ibn Umar uu nabiga naxariis iyo nabadgeliyo korkiisa Allah yeelay uu ka wariyay in uu yiri ma min ayaamin a'zamu 'inda Allah wala ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashra فأكثروا فيهن من تهليل وتكبير وتحميد تاسو معناه هذا نقانيسو مجرو مالمو إلهي حقيس او جعل يحي اوغنا وينيسين بدن يحي عمل لا سميو مالمها 10 ka ah gudahooda ee badiya ilaahi badiya ayuu yiri ilaaliyana Allah yeesiga iyo waxa uu badiyo yiri in takbiirta iyo tahmiida waxa kaloo laga soo wariyay ibn Abbas in nabiga yiri alayhi salatu wasalaam ma jirto maalmo ka fadli badan amal ahaan markaas nabiga asxaabtiisa ku yiraahdeen nabi Allah hatta jihadka markaas uu yiri nabigi hatta jihadka dar Allah mooyee in dar Allah xajkiisa mooyee ninkii inta naftiisa iyo maalkiisa ugu hibeeyay jihadkaas oo aan labaduba ku waaya oo aan waxba kala soo noqon marka waxa uu yiri ma min أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أيام ال10 وأيام ال10 قالوا يا رسول الله ولا الجهاد
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي